dalkeennu iyo dowladnimadeennu waa hana qaadaysaa waana istaagaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan soo marnay taariikh adag duruufo adag marxalado adag ayaan soo marnay oo u baahan in laga hadlo mar walbaba oo aan la iloobin sababta keentay iyo waxa kalifay in Soomaaliya tartanka caalamka hadda meeshaan joogno isma amaanayno waxna iska sheegi mayno laakiin tartanka adduunka socda oo lagu tartamayo dowlad wanaag oo lagu tartamayo ciidan iyo awood oo lagu tartamayo ciidan ciidanka badda imisa frigate ama warships noo yaala oo baddeen hoganaya intee taangiye haysanaa waa lagu tartamaa ciidankaaga cududiisa intee leegyahay dowladnimadaadu seeta nadaafadeedu seeta dowlad wanaaggeedu seeta musuqmaasuqa see ka yahay ma dad fawda ah oo aan waxba xeerinayn oo wax alla waxay arkaan xaaqaaya miyaa mise dad nidaamka iyo sharciga u hoggaansan oo iimaan leh oo islaan ah oo sida caalamka u dhaqmaayo oo ka fog musuqmaasuq dalkeennu sidee yahay waxbarashadiisa tartanka caalamka marka la fiiriyo caafimaadka dadkiisu see yahay ama reer miyigu see yahay waxaasoo dhan idinkaa yaqaana xisaabtaas ku dara meeshaan caalamka aan kaga jirno iyo waxa keenay meesha aan caalamka kaga jirno sababteeda waxa weeye marka waxbaan ka baranaynaa intaas waxaan ka baranaynaa waxay tahay dowlad wanaag inay tahay musuqmaasuqa oo noocyadiisa badan in laga fogaado hadduu yahay hadduu yahay dhac hanti aadan lahayn inaad qaadato hadday tahay cadaalad darro inaad ka fogaato